waxaa dhowrkii sano ugu dambeeyay calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laga saarayay xarunta baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada oo loo yaqaan Queen's Park. Munaasabadan calan saarka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay gobolka Ontario, diblomaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida. waxaana suurtageliyay munaasabadan calan saarka ururka mideynta. Mahad Cali Yuusuf oo ah gudoomiyaha ururka mideynta ayaa ugu horeynba hadallo soo dhaweyn ka soo jeediyay munaasabadaasi. On behalf of Mideynta Community Services and Somali Immigrant Aid Organization, I would like to take this opportunity to welcome you all at this special flag raising ceremony. Faisal Hassan oo ah xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee laga doorto gobolka Ontario ayaa isaguna ka hadlay munaasabadan calan saarka uguna hambaliyay dhammaan dadka Soomaalida iyo guud ahaan dalkan Canada maalinta xorriyadda labada dal oo ku beegan bisha July 1-deeda. As we celebrate Somalia's Independence Day and Canada Day this July 1st, raising this flag reminds all Ontarians that the Somali community here is vibrant, thriving community with a bright future. Yes. markii la ciyaaray heesta astaanta calanka Soomaaliya ayaa fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed Ustaad Axmed Naaji Sacad oo ay weheliso fanaanada qaranka Faadima Cali Nakruma uu saaray calanka Soomaaliya iyadoo dhammaan dadweynihii joogay munaasabadaasi ay wada qaadeen heeska astaanta calanka Soomaaliya qoloba calankeedu waa cayn keenu waa cirko kale oo aan caadba lahayn. محي الدين جامع تلفزيون كقرن كصوماليا تورنتو.